kale galab wanaagsan afhayeenka aqalka hoose ee dalkan Mareykanka ee Kongareeska waa Nancy Pelosi ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in si rasmi ah uu bilowday baaris lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo eedaha la xiriira in uu madaxweynaha Ukraine uu ka dalbaday in uu baaritaano ku sameeyo Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka haatan musharaxa dimuqraadiga iyo wiilkiisa Hunter Biden. Pelosi ayaa hadalkan waxa ay sheegtay kadib markii hogaamiyayaasha xisbiga dimuqraadiga ee kulan aqalka cad ee Kongareeska shalay yeesheen. Haddaba Maxamuud Carab Cabdi oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay bal sida hadalkaasi loo arko dalkaasi markii la fiiriyo. Cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay. Arrintani waa arrin saaka lagu soo toosay oo caalamka oo dhan guud ahaan uu aad u hadanhayo. Si gaarana Ukraine waxaa mid moodaa inay indhaha ku hayso waxyaabaha dhacayay ama waxyaabaha inta badan ka socday waddanka Mareykanka. Dadka reer Ukraine siyaabo badan bay uga aragti dhiibanayaan. Qaar waxay u arkaan runtii in xiriirkii lasoo farageliyey, xiriirkii siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ay u arkaan in arrintaasi ay caqabad ku tahay. qaarna ay u arkaan in musuqmaasuqa waddanka ka jira ay indhaha lagu soo jeedin doono oo imika laga bilaabo ay demokraadka caalamka iyo waxyaabaha kale ee dadka daneynayaasha ay ugu dhegtaagi doonaan waxyaabaha musuqmaasuqa inta badan ee ka jira waddanka Ukraine. Inta badanna waxaad moodaa sumcadda iyo xiriirka ay leeyihiin Ukraine iyo waddanka Mareykanka in uu waqtiyadii u dambeeyey uu aad u wanaagsanaa, isla markaana taageero buuxdana uu labadii maamul ee kala dambeeyeyba uu xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo oo ay helayaan. bal ganacsiga reer Biden iyo noga waran Ukraine. Horta ganacsigaasi ama xiriirkaasi waxa uu bilaamay 2014 wiilka uu dhalay Biden, John Biden oo Hunter Biden la yiraahdo, waxa uu shaqo ka bilaabay 2014 shirkad soo saarta tamarta dabiiciga ah ee Burisma. Ama taas waxay ahayd markii uu madaxweyne ku-xigeen ka ahaa hogaamiyaha Joe Biden oo waqtigaasi aad ugu ololeynayay ama Ukraine cadaadis ku saarayay in la helo dawlad nadiif ah oo cadaalad ku dhisan oo musuqmaasuqna la dagaalanta. Laakiin waxaad moodaa waqtiyadaasi in isla markiiba loo magacaabay wiilka Biden in uu agaasimo ka noqdo, inkastoo shirkadda muddo ka hor la aasaaso 2002 la aasaasay oo waqtigaasi nin Mukhalay la oran jiray waa aasaaso iyo madaxweyne Yanukovych ay saaxiib ahaayeen madaxweynihii hore, isla markaana loo magacaabay wasiir oo waqtigaasi uu soo aasaasatay shirkaddu ka soo shaqayn jirtay gobolka Crimea ee waqtiga 2014 uu la wareegay Ruushka. Haddana waxay ahayd mid ay shirkaddu ku raadinayso inay ku hesho saaxiibo badan oo Yurub ah iyo saaxiibo badan oo Mareykan ah. Taasaa sababtay inay xiriir wanaagsan iyo sumcad wanaagsan ay la aasaasanto oo ay ku soo daraan guddiga sare ee shirkadaasi Boris oo waqtigaasi ahayd shirkad soo saarta tamarta. Taasaa sababtay in uu horta si toos ah uu u soo caga dhigto waddanka Ukraine iyo ganacsigeeda. waa tahay maxamuud oo madaxweynahan cusub ee dalka Ukraine waxa uu ahaan jiray nin majaajileysta ah oo dadka ka qosliya. labadooda xiriir sideeya ayaa ka dhaxeeya? xiriirka ka dhaxeeya horta Mareykan waqtiyadii u dambeeyey aad buu u fiican yahay, inkastoo madaxweynahani uu yahay madaxweyne kolley siyaasadda ku cusub oo socodbarada oo looga bartay majaajilo iyo howlaha masraxiyadda. laakiinse haddana waxaad moodaa in muddooyinkii labadii sane u dambeysay uu jilayay siyaasadda oo ahaa dadka u matelaya Ukraine, niyadda fiican u leh waxyaabaha dareenka shacabka ah aad u matala. waxa uu isku dayay madaxweyne Zelensky in uu xiriir la sameeyo waddanka Mareykanka iyo madaxweynaheeda Donald Trump. waxaanaad moodaa in waqtiyadii ugu dambeeyey oo Trump uu ugu deeqay lacag $391 milyan oo uu ku dhisayay ciidamada. waa hagaag maxamuud, haddaynu eegno dhinaca Ukraine marar badan dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay dal musuqmaasuq uu baabiiyey. dawladdan cusubina waxyaabaha uu ololaha ugu jiray waxaa ka mid ahayd inuu musuqmaasuq wax ka qabanayo. adigu iminka muddo dheer ayaa deganay dalkaasi. musuqmaasuqii lagu xaman jiray Ukraine ma sidiiba ma waxbaa iska bedelay? ifafaalo wanaagsani ma muuqdaan? xaqiiqatan
ifafaale wanaagsan waa muuqdaan oo niyadiisa iyo qaabka uu dhistay guddida musuqmaasuqa iyo siduu xeerarka iyo sharciyada uu u sameeyey u habeeyey u qaabeeyey ayaa kaaga muuqatay inuu madaxweynuhu rabo in ay ka go-an tahay inuu wax ka qabto musuqmaasuqii baaxadda lahaa ee xarkaha goostay ee ragaadiyey dhaqaalaha iyo welibana xidhiidhada wanaagsan ee ka dhexeeyey hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya dhinaca dhaqaalaha ama ha ahaato ama ha la siinayo ama ha ahaato waxyaabaha infrastructureka ee loogu deeqayaba waanad weli moodaa in aanay weli kasoo kaban musuqmaasuqii oo weli waa jiraa oo maka odhan karo waa la tirtiray laakiin waxaad moodaa in magaratay in diyaar u yahay madaxweynuhu inuu wax ka qabto arrimaha dhinaca musuqmaasuqa. maxamuud carab cabdi oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine oo khadka telefoonka ugu warramaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa.